بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ومانتنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلن كان وكسابسن yahay inaan ka hadalno oo ka jawaabno oo ka soo yeeray Sheekh Qaadir Soomow kuna saabsan Sheekh Maxamed Cabdi Umar oo bariyahan dalka magaalada Muqdisho gaar ahaan joogay. Mar hore aan ka hadalnay ahayd saacadii la soo dhaafay, laakiin annagoo isleh oo si kale loo xalliyo oo meelaha la xiriireynay oo aan filaynay in si kale arrinkan loo xalliyo oo si kale insha allahu tacaala looga jawaabo aynu soo gaarsiisay maxaan kula saacadan ayaga ah. marka koowaad waxaa weeye waxaan ka hadlaynaa waa difaac aan difaacayno cirdi iyo sharaf qof muslim ah oo haddana caalim ah kana mid culamada Soomaaliyeed oo caanka ah oo dacwadan lagu yaqaanay, diintan lagu yaqaanay, wanaagga lagu yaqaanay, kana mid ah arkaanta iyo ragga maantay ee shacabka Soomaaliyeed ay u baahan yihiin, ay cilmigooda u baahan yihiin, waxtarkooda u baahan yihiin, kaasoo ah Sheekh Maxamed Cabdi Umar. Nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku leeyahay xadiid: laysa minna man lam yarham sagiirana wa yuwaqqir kabiirana wa yacrif licaalimana xaqah. naga mid baa qofkeena yar aan u naxariisan, midkeena weynna aan ixtiraamin, caalimkeennana aan xaqiisa iyo karaamadiisa iyo darajadiisa aan u ictiraafin. marka anagoo ka duulayna xadiidka asaga ah iyo guud ahaan aayadaha tilmaamahaya in dadka muslimiinta ay xaq isku leeyihiin, inay is-ixtiraamaan isku leeyihiin, inay iskaraameeyaan isku leeyihiin, in haddii qof wax loo geysto in la difaaca loo baahan yahay. anagoo ka duulayna waxaan caddaynaynaa kow kelimadii Sheekh Soomow uu ku hadlay oo markii la isku geegeeyo dhammaanteed ahayd duritaan iyo wax ka sheegid. shiikha waxaa laga sheegahayo caqiidadiisa iyo diintiisa, waxaa laga sheegahayo la durahayo. kelimadda ayadaa kelimo Sheekh Soomow oo culummada ku matalaya ma aha, waa kelimo asaga iyo ra'yigiisa gaarka ah. midda labaad waxaa weeye haddii shiikhu uu maaragtay wax tabanayo ama uu su-aal u qabo, in waxay ahayd culummada uu maaragtay nala soo xiriiray ahayd, wada shaqayn baan lahayn, wax badan baan soo wada qabanay, dal iyo diin iyo maaragtay iyo dowlad baa naga dhexaysa. marka shiikhu inuu maaragtay ku degdego arrin noocaas oo kale ah oo darajadaas leh munaasab ma ahayne. hadday wax jiraan ama su-aal uu qabo, diinta dhammaanteen mas-uul baan ka nahay, diinta dhammaanteen baa wada waardiyeynayna, caqiidada kulligeen baa wada waardiyeynayna. haddii wax dhibaato ay jiraan ama nabiga sallallahu alayhi wasallam loo gafay ama diinta loo gafay, in waxay ahayd maxaan ku iraahaa la iswaraystay ahayd oo waxa jira la sheego si markaa mowqif dhamaystiran loo wada qaato. midda kale waxaa weeye anagu waxaan ku wada shaqeynayna waxaa weeyaan waa midnimo diintaas iyo ummaddaas iyo dowladda Soomaaliyeed iyo maslaxadda caamka ah in laga wada shaqeeyo ayay ahayd. in dadka la kala geeyo oo gaar ahaan culimmadooda waxtarka ah oo miisaanka leh oo wax ku oolka ah in la iska horkeeno iyo shacabka waxa maanta maslaxadeena ah ama loo baahan yahay ma ah. gaar ahaan Sheekh Maxamed Cabdi Umar oo hadda waxa u yimid dalxiis maaha, wuxuu u yimid xataa qaraabo salaan maaha, wuxuu u yimid una imaan jiray hadda ka hor in dadka Soomaaliyeed oo walaalihiisa ah uu maaragtay
dhibaatada jirta oo maxaanku rahaa uu maaragtay u gargaaro ama uu soo gurmado buu imaan jiray uu haddana u yimid beledweynu tegey kaalmadii uu siday oo dadku usoo wakaasheen ayuu geeyey oo weliba maxaanku raha hiiraan iyo shabeellada dhexe kulligood waa la wada gaarsiinaya insha allahu tacaala marka shiikaas soomaaliyeed oo caalimka ah oo u yimid inuu soomaalida usoo gurmado in saas loo galo hataa dhaqan soomaaliyeed maaha hataa muru'ada ay ixtiraamka soomaalidu isku maaragtay isku aqoon jirtay ma aha in kale waxaa weye shiiku kelimadda uu beri jeedin insha allahu tacaala waa kelimo caama waa nasiixo caama waxaa weeyaan dadka lagu baraarujiyo war dhibkana haya oo kala nooc ah oo intaasoo nooc ah dhibkaa nagu dhacaya cabaarana hayey muxuu nagula dhacay maxaa looga bixi karaa wuu ka hadlayaa shiikuye shiiku wax gaar ah ama kooxaysi ama firqo ma ka hadlahayo marka waxaan soo jeedinaynaa meeshaan in kelimadaas ay tahay ama nasiixa shiiku ujeedin doonaa waa maslaxa caama in la yimaado oo laga faa'iidaysto baan dadka ku baraarujinaynaa waana sida maxaanku rahaa madaxda dalka qaranku ay ka warqabaan oo aan maaragtay iskuna ogeyn weeye waxaa weeyaan waa wacyigelin waa dadka moraalkooda oo la dhiso waa dadka oo wax loo sheego weeye ee cid wax laga sheegayo ama cid lagu dhibahayaay ma jirto ugu dambeyn waxaan caddaynaynaa sida sheekh umar aan u difaacayno aan u difaaci lahayn maanta haddii sheekh maxamed soo haddii maaragtay sheekh somo dhib loo geysan lahaa ama wax laga sheegi lahaa ama loo duli lahaa diintiisa caqiidadiisa saasaan u difaaci lahayn marka hadda qof jeclaysi maahane waxaa weeye karaamada maaragtay islaamka iyo karaamada muslimiinta iyo karaamada culamada soomaaliyeed ayaa guud ahaan difaacaynaa hadda mid qof loogu exanayo ma ay aha ugu dambeyn waxaan u mahadnaqaynaa dhammaan shacabkii soomaaliyeed runtii oo mawduucaas maxaanku ka gelgishay oo dhibka shiika loo geystay ee ka xumaaday oo nala soo xiriirhayay oo dalbanhayay in kelimad laga yihaaho oo waxa runta ah ama maxaanku warsa maaragta xaqa ah la caddeeyo ay mahadsan yihiin marka dadaalkooda iyo inay ka murgeen waxaa meesha ka dhacahaya iyo sida shiika maarata loo aflagaadiyey ka xumaaday ayagana runtii mahadsan yihiin dhammaantood ilaahi subxaana watacaala kuwii isku kaashada wanaagga allah naga dhigo waana mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmat ullah wabarakaatu بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بسم الله إله هذا مهدرنا مركه هره وهل كان أنت نوافجي إن كسر جديدنا كلمة دان كوبان سيد الشيخ بشير عمل صلاة الشيخ نوين كلمة ديسي وكويري أيان أنت وحان سوين نوين إن الشيخ نوين عالم كأه الشيخ محمد عبد الممل كلمتي شخصون ودقي سوشيال ميدياها أما برها بالشدة إذا عليه قلبت بحي فيو هذا بي بي سي ده ريدي وكير الشيخة ورنتي أن آذ وحماني علماء الصوماليين مالك سيد جوكتنا هي شعب الصوماليين أي سكد الجشين يعني النقوة إلى لنا أمانة علمية هي أمانة هي حق شبه ونقول لها هي الأمانة علماء الصوماليين عرضك علماء هي الدين تودا هي المقام كودا والله إلى اليوم للدفاع وحاول يبقى كده أنت الدين تودا للدفاع لأنه هو ورثة الأنبياء ودحل التويدي أما دحلك النبي قدسك دحلوي صلى الله عليه وسلم عالمك رباني ومدى الصومالية يضع المنطقة في سنة والعلماء الصومالية يضع أي وأكن قدوة إنه هي حسنة لوي قال اعتدالك يدقنا شذا يهدوء أي سمتك أنت علماء نمو فتودي سنة ملايين الصومالية سمر مرة يسمك كسر حبا
waxa weeyaan marka in maanta sidaas fudud lagu qadfo ama erayo aan munaasabayn laga yidhaahdo wax la aqbali kara ma culimadu ma yeri karto anugu shaksiyan sheeksomo dadkii ugu horreeya saaka la hadlay baan ahaa oo ka dalbada arrintaas inuu ka laabto una sheegay in uu sheekhu aad ugu khaldan yahay sheekh maxamed cabdi umar saxbo badan wax badan usan ka aqoon anugu waxaa yidhi sheekha 26 sano ka badan saaxiibanahay jaamacada islaamiya kusoo wada baxnay wuu iga dambeeyey laakiin waa isku dhaweyn 3 sanaan ka horreeyey marka waxaa yidhi sheekha aan qurbinaan oqaana ilaa 84 oo jaamacadda madiina oo galay anuguna aan 2 sano markaas aan maaragtay aan dhiganayay ayaan ilaa maantan saaxiibana sheekh marka maaragtay 85 meelahaas ayaan marinaa samayl bilaw isagu dowr 90 aan dhaho marka sheekha marka waxa weeyaan inta sheekh Bashiir ka yiri anoo waafaqsanaa waxaan rabaa inaan dhowr ku daro marka ugu horeysa tuhmooyinka sheekh Samo ee 4 qaybood gaarayay ee mar uu yiri sheekhu waxa uu u arkaa duruq suufiya inay tahay gaal marna uu yiri masaa'il fiqhiya oo soo qaaday oo yar marna uu yiri wuxuu ahay dadka mutadarrifiinta oo argagixisada oo dadka laaya ninka u iftooda marna uu wax kale ku sheegay wax badan oo kaleeto waxaan halkan ka cadaynayaa anigu macluumaadka aan haayo 100% intoo inay tahay iftiraa iyo been abuur aan waxba ka jirin sheekhana sheekh Samo anoo diin iyo waxaan ku aqaanay iyo laftiisa shakhsiyada wanaagsan laakiin dad aan munaasab ahayn ma ana weydiiyay maanta waxaan yidhi adiga wax sugan meed ka haysaa masaa'isha ku tacalluqda marka masaa'il fiqhiga oo iska yar oo iyada lafteeda u fahmaysan aan ahayn sheekh uga jawaabay ayuu ii soo qaaday laakiin arrimihii waaweynaayo gaalaysiinta duruuqa suufiyada iyo inuu isagu ahay argagixisada ninka u iftooda labadaba wax caddaynana oo keeni waayo mana keeni karin marka waxaan idhi marka arrimahaas arrimo waaweyn waayo sheekh ka laabo hadafka ugu dambeeyey nasiib darro marka waxaan caddaynaa marka anigu waxaan rabaa inaan 5 qodob soo socota aan ishaaro qodobka koowaad waxa weeye arrintaas in sheekhu uu beri ka yahay shaqana uusan ku lahayn sida sheekh Bashiir u sheegana sheekh Samona haddii saas oo kale looga been abuurta ama waxuusan ahayn lagu sheego sidaas oo kale u difaaci lahayn sheekh maxamed cabdi umar naasiruna la mid yahay marka waa ka difaacaynaa ummaddana waxaan u caddaynaynaa inay baadil tahay tumooyinkaas xataa qof muslim oo caadiya oo caamiya xataa lama dhihi karo wax noocaas oo kaleeta iska dhaaf nin caalim ah oo rabbaaniya oo la yaqaano oo weliba waaqica uu caddaynaayo in sheekh maxamed cabdi umar argagixisada markii uu xamar yimid 2009 shirka culimmada ay yimideen axmed cabdi godane iyo raggii hogaaminaya fikirkaas uu tala kulmay oo yidhi sheekh shariifa madaxweynaha waa nin muslim waa ninka sharci maxkamad hogaaminayay walaalayaal oo la heshiiyey laga diiday markuu laabtay nairobi uu tagay muxaadarooyinka u qabtana waa la yaqaanay youtube-ka iyo facebookga meel walba inay yaaliin inuu caddeeyey in nimankaas ay jidka ka qalloocdeen dadka dhiiggiisana ay banaysteen markii uu dhowr muxaadara ka dhigayna oo silsila oo weliba muddo socotayna waatay isaga laftiisa ay gaalaysiiyeen ay yidhaheen sheekh maxamed cabdi umar wuxuu u shaqeeyaa mukhaabaraad reer galbeed iyo wax daran marka dambe xataa ay hanjabaad iyo u bilaabeen inay u cagajugleeyaan dil iyo wax lamid marka sheekh iyo mowqifkiisa la yaqaano noocaasa iyo sidaas uu sheekh Samo isaga cambaareeyo ama eradaas xun uu ku yidhaahdo runtii wax la aqbali kara maaha waxaa lamid a masalada kale ee uu duruuqa suufiyada uu ka yidhi waa gaalaysiyey sheekhu haba yaraatee culumtiisana waa duuban tahay meel kastay ku jiraan kufri kuma idlaaqin masaa'il fiqhiya masaa'il caqiida oo marka laga hadlaayo adilada iyo daahirka qur-aanka la fasiraayo sugan dariiqa la sheegin oon shaksi la sheegin oon koox la sheegin oon jamaaca la sheegin oon dariiqa la sheegin in la yidhaahdo man xalafa bikayri illahi faqad ashrak qofkii ilaahay qayrkiisa ku dhaarta gaalnimo ku dhacay nabiga yidhi sal allahu alayhi wasalam sheekhu ma dhihin qofka hadduu ilaa la tarjici bacdi kufaaran yadru bacdi riqaaba bacdi daadaashada gaalaha u noqonina oo qaarkiin qaarka luqunta ka gooyaan kufrigaas nabigu uu sheegay mufsiriinta o dhan waxay leeyihin waa kufrun duuna kufrin kufri diinta looga baxi maan laakiin waa shirki waa kufri marka masaa-ishaas marka culammadu siday u sheegayaan laakiin inuu yidhaha dariiqa fulaniya ama duruq suufiya ama qabiilo fulaniya ama jamaaca fulaniya gaalo ah sheekha mana ka sugnaanin mana dhicin sida idaacadaha galabta uu ka yidhina wax caddayna soo mafdo sheekh Samo hayo hasoo dhiga bannaanka hasoo dhigo yidhi laakiin lama hayo dabcan waxaan rabaa kale inaan ishaaro marka waa war un la soo gaarsiiyey oo isaguna uu iska soo tuuray erayada sheekh Samo oo ka yidhi sheekh maxamed cabdi umar waxay dhaawacayaan arrimaha soo socda kow waxa ay dhaawac ku yihiin wixii sheekh maxamed uu ka mudnay sheekh Samo iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed culimmada soomaaliyeed oo ah inay qadariyaan caalim jaliil ah oo u yimid oo ayaga yani maanta magaaladii ay soomaali waaye dalkan dalkiisa waaye laakiin kuma noola kenya ku nool yahay maadaama kenya ku nool yahay halkaan wuxuu leeyahay xuquuqdii martigelinta iyo soo dhaweynta ayuu leeyahay ixtiraam marka in israa'iil loogu bedelo sheekh Samo qalad uu galay waaye qaladka labaadna waxaa waaye
الشيخ محمد هو يمد سيد الشيخ بشير وعد دليل وما إمام الحيس يقولوا جيس إنه يمد من رأس يمد ما هو يمد يعني لفتة إنسانية أرن إنسانية بني آدم نماء وإسلام نماء وأهدد ولا لهيسة وبأي هلكيان إنه بالبادية سدح بقول يسدح كن أو دولار وحرتيس كسر بريم تاجيس رحنا سوق عليه مركز سوق من السن أيوة أفراد سعودية وتوادنا ديارات كان راعي صبر قوة قندال كيس أيوة بلوينا كدري مركز بقول يسدرت يسدح كن بريم ولبا أو يعني دتك الصينة أي مستحقينها بارتان دتك وسمي جديد لكل ما أسوه وقال لما تنكون نوعه حوالي قبل كشوي هذا الدنيا ولبا الشيخ سمو ماشي كل شيء أو كيبي مارت مركا وحي هذا مركا شيخ سمو دتك لمدة إني أرمها الشيخ يوي من إنك احترامان إني يعني حمان كوي يعني وحمناسة ما هي تاسنا وقالت كلا بعض وقالي قالت كسدحات وحواي الشيخ محمد عبد أمل سجوا وحسب تما يبركا أيوة حق سدحات اللي هو إنه ضيف وياي أمرتي شرف بدن ويا الدولة الصومالية هي شعب الصومالية علماء أي صفقة رواجته ما دام يسكوا وظيفيين وشقيين تعودي كوا شقيين الدين دينتين مركز دنا سجوا سلاسة إكرام الضيف نوال يقالنا شيء غير له خدمة وماله بدن لقيه علماء وتماله ولا لا إكرام هذا إن أرينا عسل غيره مركز أنت سو بلد أي كل عايش سمو بلد كأفراد أو بلد كوجود ما يكون رأي وحوي أنت وسمي سمو سلو كلامته وحين ضد كنت هاي طرق الصوفية وكأكثر سد منهج كله طريقة الصوفية وحال يقالنا هي علماء ذا أجل ذا هو رياضاس قلفشن وطعنقة والدين تكون إيمانا يكون هذا أخلاق علماء الصوفية اللي يقالنا وحوا يدد أضرب لورسن هذا سرق الآلية قفك حتى دي وحا وكجروا إن إرينا عسوا ذيك السلام لأنه في رغم يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم رسولكم قال لا لم يكن لعانا ولا فاحشا ولا متفحشا مؤمنكم معهن لعان مد أريحن مد ور فحشي كهلا ما أهمنا ما أمرت قف مؤمنة سكداف عالم دليل إنه ساس ويرادو سوالف تيس عالم وشيخ سوما نشري قواي إنه مرك أرياس كهلا مناسب وما أهين وحكى لي المخالفة كنت هاي رسالة دي سيد الشيخ بشير بدر وشاقي أنه جد علماء سكول الجرني جد الهيئات علماء السراء العراق هيئات علماء البتلعي شيخ سوما حبينهم كأها السجون هدي وح ملاحظات الجيران أننا نلو ذاقن شيخ محمد بن بشر وقلدنا كلام معصوم معهن وحي حتى جرا دي مثلا علميين دي wax kale yihiin doon noo sheegi lahaa waa baari lahayn haday sugantaan sheekh anaga war wada iman leh kulligeen markaan sheekh baa arinta naga qanay laakiin idan waxba lagu hayn mujarrad tuham mujazafa in la iska ittihaamana waa khalad oo ana manhajka duruud suufiyada laftooda lagu yaqaano wax khilaaf saway anaga duruud suufiya ikhtiram badan ma hayna waa walaalaha culama ajillaawe sheekh maxamuud cabd albari waana wada shaqeynaa guddiga kamid ah akhlaaq badan ah sheekh ismaan xiddig sheekh weyn oo caalimka ayaa marjic فتوى مفتيح نقعنا وقدرنا أنا كصوب بارني أنا علماء النوايا أنا علماء دي أو ظروف الصوفية أو حسب إلى عدة علماء وعشرة معصوم معه مثلا ما بقول ضمن كلام مثلا بقول ضمن هو راعي معه لأنه حجته كتاب كيس السنة دوايا ما الشيخ أنا قاعد بقول ضمن اللي هو راعي معه الشيخ بشير بقول ضمن هو راعي معه الشيخ ما معه أمر بقول ضمن هو راعي معه ما كنت تالفت هذا إلا وقاعد هو إلا إن علماء أي يعني ما رتي منهج إلى السوق أو كتاب كيس السنة أي حكم ما أهم طريقة الفلانية الجماعة الفلانية هي على وجه وحوي هذا السراعة هي شيخ بشير وحوي هذا السراعة هي شيخ سمو وحوي هذا السراعة هي منا ما ميزانك إلى القرآن كلها فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول مركز قاعدة أساسنا وقدام بينتي وحكى لي الشيخ ومارت مال والعي دغن كصومالي وحواي إن غف أن لهرف الإنسان دينته الإنسان سيخطأ وأن لدقي سموح وكهضلي حتى الشيخ سمو أمر مايو إنه فرد جود كل غير قال ما إنه الشيخ أمر الشخصي غرفة الإنسان إن الدين كوه لأنه هو بين سنجرين مركب إن تاس أو تهم أساس علوس لسه تور قفنا أقوين إنه عالم دغن كصومالي ده مثل علماء منا معان إذا لفتت وأخلاق لا يعلو ولقينا أن الشيخ ملين إنه كل غار هاي أنا تروح كده دعوة كنت هاي مجتمع الصومالي ده ما أنت الجو وقت اللي يسكسوا علنا هاي وأنا بعتقد إن كده قالت ولو مجرد مقدسه ونقنا كويس سجاش في وحي كدعي وضدك كب حي وشيء غلفتي سواقس بلدين وجوجي وكنت قال كاس وكنت ضدك الصومال واكل بحضي ما أنت وحي عاصمة المغرب عاصمة جامعة والصومال قبل كده حساب ضدك يا أبو سوقري نغناي ولا الصور لابنية مركب ما أنت وحي ضدك وحكي الجارين إسعافيانا ولا ربع وحي أنت لك الهيستيل السعودي دولة القانون دولة دينو أي نقطة دولة أول له ضدك حقوق وكلا قادم لكن إن هذا قفك الصومالي هو كرامات بدناي هو مقعويناي هو علم بدناي هو قدرته بدناي إن أستجيب مقدش أسوي يمد
وسفرك ugu horeeyay uu yimaado muddo dheer marka laga reebo dhowr jeer uu yimid laakiin arrimo insaani uu imaanay hadda tii ugu dambeysay waxay 14 Oktoobar arrintii Zooba ka dhacday lacag saas oo kale taa 300 ka badan noo keenay marka haddana tii labaad way 2 sano ka bacay marka shiiqi muusimka uu yimaado ay hada inuu dadkan gargaaro hadda intuu joogana dacwada uu fidiyo in ereyo noocaas oo kale laga hortagana waxay dhaawac weyn ku tahay magaalada caasimadda iyo dadka degan akhlaaqdooda iyo soo dhawayntooda oo lagu yaqiin dad wanaagsan inay yihiin ugu dambeyntii waxaan anigu shakhsiyan maadaama sheekha aan aad isku sii dhownahay oo aan si gaar ehel u nahay saaxiibtinimada culimadooda oo saaxiib leeyahay laakiin anigoo weliba fulinayo codsi iga yimid madaxda dhaqanka ee dadka magaalada xamar degan oo hadda ugu dambeeyay ugaas maxamed cali ugaas cabdulle oo mar dhow soo wacay intaan shirkan qaban iyo rag kale oo kasii horreeyay oo garaadyale oo ugaasyale oo rag kale oo aad wax ma runtii ereyada sheekh maxamed cabdi umar lagu yiri ganacsato badan oo qaar xamar joogaan qaar Nairobi oo soo qaar Yurub iyo Mareykan meel walba anoo dhammaan codsigooda fulinayo waxaan meediyaha marsiinayaa in dadka deegaankan degan oo duubabka uga horeeyaan iyo culimada iyo akhyaarta xataa culimada duruqda suufiyada qaar badan oo kamid ah ay aad uga xumaadeen in ereyadaas aysan sheekha u qalmin sheekh soomowna aan rajaynayn inuu kasoo laabto sheekhu inta uu joogana uu ka cafis dalbo una yimaado qofku waa qaldami karaa weliba sheekh somow annagu waxaan ku naqiinay inuu nin mutawaadica yahay oo qalbi furan oo hadduu xataa qaldamo soo noqo inuu yahay baan ku naqiinay arrintaas inuu kasoo laabto aniguna samayn baan ka xirayaa waa ka xaal marinaynaa runta sheekha ummadda soomaaliyeed dhan waa ka xaal marinaynaa dowladda soomaaliya oo sheekhu uu marti u yahay madaxweynuhu ugu sareeyana waa ka raali gelinaynaa muxaadaraduna insha allahu berri waa qabsoomaysaa dhammaanteenna waa wada tegaynaa ummadda soomaaliyedna waa imaanaysaa marka waxaan rajaynayaa ummadda soomaaliyeed si laab furan iyadoo maaragtay sheekha maqaamkiisa iyo sharafkiisa ilaalinaysa sheekh maxamed iyadoo qadarinaysa magaalada muqdisho karaamada ay leedahay dadka degan yacni sida ay martiqaadka ay caanka u ahaayeen iyo soo dhaweynta dadka wixii qalad ahay hore uga dhacana ay jecel yihiin maanta inay ku bedelaan bilatihi axsan oo dadka ay dib u xasuusiyaan yacni ayaamihii wanaagsanaa ee ummadda soomaaliyeed ee walaaltinimada ay iskula nooleed in ay raalli ka noqdaan dhammaan ummadda soomaaliya meel kasii joogaan dowladduna ay waa ku mahadsantahay inay muxaadaradii ay berisideeda u wadeen in maaragtay la wada yimaado arrintaas sheekhu nagala hadli doono ah in dalkan soomaalida dhibaatada ku dhacday aan uga soo laabanno ilaahayna uga soo laabanno annaguna isu soo laabanno la iscafiyo dadkuna ay uga baxaan dhibaatada mar raba in hor dhaca muxaadarada sheekhay oo qiimaha badanna in la wada weeleeyo oo la qaado meediyuna ay wada yimaadeen oo la gudbiyo insha allahu intaasaan kusoo gabageyna wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu